ما شاء الله بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى أكبر كيو خير بدن إلهي سبحانه وتعالى هقصيه شيخ أبو ضلحة سؤال ترى رايس كليه إنه وحجة وحويان ولا بقف فؤاد يا وداير سؤالها نوعا كلا وإن الصومرة بل سوحان علم وعي مركز قار كودت قوي كدارنا يعني إلهي كل شيء ولا ليه جد بكورنيان ولا بقف فؤاد يا وداير وويليا جبر جامعة يا كولج كأي ودكتان wiilku waxa uu ka shaqeeyaa cambaska jaamacadda waxayna degan yihiin isla cambaskaasi laftarkiisa ayay mataqaanayay rabaan inay degaan ardaydu waxay yidhaahdeen roommate bay ku noqdaan marka annagu halkii qol baan doonaynaa bay yidhahdeen inaan jaamacaddayda halkaa ku dhammaysano marka waxay yidhahen sheekh cabdulax maxaad nagula talin lahayd wiilku waxa uu leeyahay inta aynu jaamacadda dhiganayno wax family planning la yiraahdo aanu samayno haddii kale waxbarashadii dib bay nooga dhacaysaa annagina laba qof oo waxaanu nahay ma awoodi karno dhaqaale ahaan waxyaabo badan meeshaanu degannahay waa meel efficiency oo kale la yidhaahdo bay tiriyo studio oo kale ah oo run ahaantii aan aad iyo aada u ballaarnayn waxaanu doonaynaa bay ku leeyihiin inaan halkaasi meeshii gaaladu ay boyfriend iyo girlfriend iyo waxyaabahaas isticmaali lahaayeen halkaasi maxaan ku idhaaniya ninka iyagoo aan jaamacaddayda ku dhammaysano laakiin family planningka ninka uu igula taliyey shareecadeennu maxay ka qabtaa maxaad nagula talin lahayd maxaanu samaynaa noona soo ducee bay leeyihiin falyatafadal mashkuuran maajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا دلين يرضى دوني أيغو وحبرنا inay reer samaystaan naftoodana ay ku ilaashadaan xaaraamtana ay kaga gabbadaan waxbarashadoodana ay sii wataan waanu u ducaynaynaa labada dhalinyarada ah ayagaaba hadda arrinkaa keensadaye xataa waalidiintoodii inay kula taliyaan bay ahayd lagana yaaba inay kula taliyeen waxaan ku dhiirigelin lahaa waalid kasta oo galbeedka ku nool iyo meelahan khatartu ay ku badan tahay fikradda labada dhalinyarada ah oo kale in la sameeyo oo dhalinyarada jaamacadaha dhiganaya iyo xataa kuwa iskuullada sare dhiganhaya ee yaryarka ah weli laakiin haddee shahwadu inay ka xoog badisa ay suurtagal tahay in loo sameeyo xalaashan iyo reerkan in loo sameeyo arrintaasi waalidiinta waan ku dhiirigelin labadan dhalinyarada ana waa wax lagu daydo oo dhalinyarada da'dooda ah ay ku daydaan baan qabaa inay yihiin ducadaana waad heli doontaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala taladaad iga doonaysaan haddaan u gudbo dhiirigelintaa kadib isguursadaan idin dhihi lahaa wiil yahow reerkii gabadha dhalay ka doono ha lagu siiyo meesha aad degaysaan ee yarta ah hal firaash hadday qaaddo labada isjecel firaash yar baa ku filan laakiin labada isneceb guri weyn oo villo ah xataa kuma fillo marka haddii aad mar isjeceshihiin hal firaash meel la dhigay iyo hal sariir hadday meeshu ka bannaan tahay way idinku filan tahay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala sameeyaan idin dhihi amaa kala fogaynta carruurta biidnillaahi tabaaraka wa tacaala wax dhibaato ah ma lahan maslaxad baa ku jirta biidnillaahi tabaaraka jalla wacalaa anigoo og wuxuu alla qoray cid celin kartaa inayna jirin anigoo og si kasta ood idinku u dadaashaan alla wuxuu qoray wuu imaanayaa biidnillaahi tabaaraka anigoo og haddii aad isjeclaataan jacayl dhab ah inay gabadhu markay wax yar joogtaba ay jeclaanayso ilmo aad aabba u tahay inay indhaheeda ku aragto oo ay dhihi doonto talow ilmo aad dhashay ma arki doontaa anigoo taa ku kalsoon haddanana intaad jaamacadda dhammaynaysaan haddii aad nadaamisaan
iskana ilaalisaan uurka idinku imaan kara biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wax dhibaato ah male ilma nacaybna ma aha laakiin ilmaha in la nidaamiyo meeshay ku jirtaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si waxbarashadana loo dhammaysto waa idinku dhiirigelinaya waan ogahay kelimadan hadday culamo badan maqlaan oo de waaqaca meelahan ka jira aan ka warhaynin inay u maleeyaan ama ay u fahmaan in dhashiiba lala dagaalamayo oo ay dhahayaan wadaadadii galbeedka joogay haddayba dhashi la dagaalamayaan laakiin waxaan leenahay meel walba duruuf khaas ah bay leedahay duruuftaa khaaska ana fataawadu way isbeddeshaa masaa'ilka fiqiga ana macaani kale ayay yeeshaan sidaa daraaddeed fiqul aqaliyaad wax la yidhaahdo ayaa dadka galbeedka jooga ay muhiim tahay inay ummaddii ay ku fiiriyaan waxaan ku khatimayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sameeya arrintaa inshaa allah maalin alla maalinta ay idiin suurta gashana oo alla tabaaraka wa tacaala jaamacaadkan idiin dhammeeyana reer wanaagsan oo meel degan oo ummad muslimiina soo saara noqda haddii ilaahay uu idin siinayo tabaaraka wa tacaala wallahu aclam